kowda May ayaa ah maalinta shaqaalaha adduunka waxaana sanad kasta laga xusaa caalamka oo dhan waxaana dalkeena Soomaaliya lagu qabtay munaasabado waaweyn oo lagu xusayay maalintaasi munaasabad ay soo qaban qaabisay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliin ka tirsan dawladda ururada haweenka kuwa shaqaalaha dhaqaatiir Soomaaliyeed iyo mas'uuliin ka socotay maamulka gobolka Banaadir wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Cali Muudi ayaa sheegay in golaha wasiirada ay horgeyn doonaan sharciga shaqaalaha gaarka si loo xaqiijiyo ayuu yiri xuquuqda ay helaan shaqaalaha Soomaaliyeed markaan imid wasaaraddu meeshan ka bilaabay waxay ahayd si aad u ogaataan in ummadda Soomaaliyeed 25 sano dib ku soo jirtay badaha ku leeynayo saxarooyinka meelaha la maro ku leeynayo eedayno xanuujinaysa waxaan jeclaystay sharciga hadda laga dhawaajinayay ayaan ka bilaabay hawshayda koowaad sababta aan u yeelay waxay tahay waxay xanuujinayay waxaana loo sheegay oo xog ku helnay shaqaale badan tirada saxda oo dhabta lama hay laakiin hadda inta la sameeyay 5750 ayaa la diiwaan geliyay 5750 oo shaqaale Soomaaliyeed ma jiraan sidoo kale wasiir dawlaha wasaaradda arrimaha gudaha Cabdirashiid Maxamed Xidig oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in dhalinyarada ku biiraya xarakada al-shabaab ay horseeday shaqooyin loo diiday waxaana wasiir dawlaha sidoo kale uu xusay in dhalinyaro fara badan ay shaqo u doonteen xafiisyada dawladda balse loo diiday ayna go'aansadeen inay qoriga qaataan taasna aan loo baahnayn waqtigan waxaan anigu waa ka mid ahaan jiray mas'uuliyiinta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xaaladaha ka jirana si fiican baan xoogaa lagu ahay shaqaalaha Soomaaliyeed ee dalka joogay ee aan helin fursad ama waxbarasho ama inay banaanka dalka uga baxaan marka dalka shaqooyinka ka soo baxaya ay timaado lama siiyo fursad waxa fursadda la siiyaa dadka banaanka ka soo laabta sidaas darteed mudane wasiir waxaan soo jeedinayaa fursadda koowaad guddiga shaqo bixinta qarankuna waa joogaan waa arkaynay xafiiska gobolada waa bari riwaayadii ay dhigayeen waa run xafiisyada dalku waxay u dhisan yihiin qaabeeleed waa sax weeye waa xaqiiqo weeye ama si sax ah u abuuranto ama si khaldan ah u abuuranto xafiis walba waxa ka buuxa Kawsar Cabdiraxmaan Cilmi Hoon Cable TV Muqdisho.